Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowga waxaan ku eegaynaa falanqaynta weekend inagoo ka bilaabaynaa DXY. DXY haddii aan ka bilowno, suuqan wuxuu samaysanayay impulse, dana correction, dana impulse kale, dana correction, dana impulse kale, dana correction, haddana impulse kale. Marka suuqan waxaad arkaysaa inuu samaynayo lower low, lower high, waxaan ujeedaa higher low, higher high, higher low, higher high. Marka higher lowgii ugu dambeeyay oo kaas, higher highgii ugu dambeeyay oo kaas. Marka suuqan waxa lagu socday waxa weeyaan uptrend. Uptrendkii imka waa uu dhamaaday, waxaana bilowday downtrend. Marka suuqan waxaan ka rajeynayaa inuu correction yar sidaa usoo galo, kadibna uu sidaa usoo dhaco impulse correction kasta, kadibna uu sidaa usoo dhaco. Marka chance kasta oo downtrend aan ka faa'iideysanaya. Marka chance-ka soo socda weekend waxaan rajeynayaa inuu correction kani marka hore dhamaystirmo, kadib ugu yaraan halkaa waa la jebin doonaa insha Allah. Sidaa rajeynaya weeyaan suuqa uu samayn karaa, waxa kale uu samayn karaa inuu si kala duwan sidan uu sameeyo. Marka markastaba anigu waxaan rajeynaya waxa weeyaan suuqa downtrendka ayaan la soconaya. Chance kastoo dhowna waan ka faa'iideysanayaa, chance kastoo dhowna waan raacaya insha Allah. Haddii uu fursad isiiyo insha Allah waan ka faa'iideysanaya. Marka chance-ka dheer ee soo socday downtrendka ayaan insha Allah dayadanaya aan raaci doona. Marka fursadda haddii aad aduguna chance ka heshid lacagaha ideas USD ugu horeyso sel waad u raaci kartaa insha Allah. GBP USD iyaduna waxay kasoo horjeedaa waxa weeyaan DXY-da. Marka GBP USD iyada waxa lagu socday impulse correction, impulse correction, impulse. Marka inkastoo iyada downtrend haddana u socoto, haddana halkaas waxa kaaga sii muuqata inuu correction-kani halkaa kasoo bilowday ilaa halkan uu dhamaaday. Marka waxa dhici karta inuu suuqu kor aado. Marka in yar correction yar halkan waa lasoo geli karaa, impulse correction yar oo saasa waa lasoo geli karaa, kadibna chance kastoo baaya waan ka faa'iideysanaya insha Allah. Chance kastoo baaya haddii uu fursad ay siiyo waan ka faa'iideysanaya. Marka chance kastoo baaya fursad kastoo GBP USD ka siiso buy waan ka faa'iideysanaya. Marka waxaan rajeynayaa aduguna inaad ka faa'iideysatid haddii uu fursad ay siiyo weeyaan. Haddii aanu isiina suuqan gelimaayo waan sugaya. Marka chance kastoo fursad kastoo baaya waan ka faa'iideysanaya insha Allah. Ilaa halkii waa la tegi karaa, ilaa zoonkaas waa la tegi karaa, ugu yaraan ilaa zoonka waa la tegi karaa haddii aan zoonkaba la jebin. Marka suuqa waxaan ka rajeynayaa in uu tago ilaa halkaas. Marka fursadda halka kaa goormi doonta insha Allah waan ka faa'iideysanaya insha Allah. NZD haddii aan u nimaadno GBP USD waxaan ka rajeynayaa waa buy. NZD USD iyaduna waxaan ka rajeynayaa waxa weeyaan waa buy. Chance kastoo iyaduna buy waan ka faa'iideysanaya. Inkastoo waxa dhici karteeda in inta correction la yar galo halkaa hoose sida loo yimaado, kadibna uu sida u bilaamo chance-kii downtrendka laga yaabaa inuu halkaa ka bilowdo. Marka wax kasta way dhici karaan, laakiin iyada waxaan ka rajeynayaa inuu toos halkaa uu ka bilowdo impulse-gii, kadibna uu sii socdo correction uu sii socdo. Marka chance kastoo baaya iyadana waxaan ka rajeynayaa inaan haddii uu fursad suuqu isiiyo inaan ka faa'iideysto insha Allah. Chance kastoo baaya insha Allah waan ka faa'iideysan doonaa. Chance kastoo baaya waan ka faa'iideysan doonaa. Wax dhici karta ayar halkaa la yar jebiyo, kadibna uu buy bilaabo. Marka si kastaba ha ahaatee chance kastoo baaya NZD USD waan ka faa'iideysanaya. Jihada kaliya tan ka sugaya waxa weeyaan waa insha Allah waa buy. AUD USD iyaduna waxay la mid tahay NZD USD, iyaduna waxaan ka sugayaa inay yar correction inta lasoo galo, kadibna uu impulse-gu halkan ka bilowdo. Marka impulse-ga imka bilaami doona insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaan raaco haddii uu fursad siiyo. Marka correction haddii uu sidaas oo kale kuu siiyo, haddii uu correction dheer sidaa kuu siiyo, kadibna waad sii raaci kartaa. Correction kale haddii ku siiyo waad sii raaci kartaa. Marka ilaa halkii waa la tegi karaa, ilaa halkaas insha Allah waa la jebin karaa sidaas weeyaan. wax kaloo dhici karta inuu xaggan hoose inta hoos loo yar jabiyo kadibna uu toos haddana u bilowdo. Marka markastaba anigu janiska uptrainka ee soo socda dheer ayaan insha Allah rajeynayaa inaan ka faa'iideysto weekend insha Allah. Euro USD
euro USD iyadu waa GBP USD oo kale ay la mid tahay impulsigii koowaad waa kaa bilowday wax lagu soo socday correctionkaas lagu soo socday correctionkani uu dhamaaday marka impulsigii koowaad oo kaa aan isleey uu bilowday waxaa dhici karta in yar inta kor loo yar jabiyo kadibna correctionkii uu bilaabo correctionkan anigu markasta waan sugayaa insha allah correctionkani markuu dhamaado ayaan ka faa'iideysan doonaa impulsiga dheer ee soo socda impulsigaas ilaayo ugu yaraan halkaas uu tegi karaa halkaas liquidity weeyaan ilaa halkaas waa la jebin karaa insha allah ayaan isleeyahay USDCHF yadu deegas waa idin badanka la yar midtay USDCHF waxaan ka rajeynayaa inay correction inta la yar galo kadibna lasoo dhaco chance kastoo downtrayna waan ka faa'iideysanaya insha allah uu siiyo haddii uu siiyo weeyaan insha allah marka USDCHF waxaan ka rajeynayaa inuu suuqani uptrend downtrendkiisaas inuu weynka bilowday uu ku socdo uptrend ba halkan laga soo bilaabay marka laakiin uu dhamaaday uptrendkani waxaan rajeynayaa iminka downtrend dheer oo ilaa xagga hoose u socda ilaa ugu yaraan halkaa jabiya ayaan ka rajeynayaa marka chance kastoo dhowna waan ka faa'iideysanaya insha allah USD Japan iyaduna USDCHF oo kale la mid tahay halkan ayuu kasoo bilowday chancekii correctionkii ahaa kaasi wuxuu ahaa impulsigii koowaad kanna waxa weeyaan correctionkii imika waxaa soo socda impulsi dheer oo insha allah rajeynaya ilaa halkaa hoose inuu hoos u sii jabiyey ilaa halkaas marka chanceska hadduu fursad halkaas oo kale kaa siiyo chancekani wuxuu noqon karaa tradekii bishan marka intaa ayaan ku joojinaya insha allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu